حقيقيديو حبك رعد والنبات وضح حقيقيديو حبك رعد والنبات وشواد حريرو داريسني محقدور لا حاكمين 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 كبيري وضح حقيقيديو حبك رعد والنبات وضح حقيقيديو حبك رعد والنبات وشواد حريرو دارسني محقدور لا حاكمين 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 كبيري. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan joognaa magaalo xeebeedka Garacad. waxaan joognaa meel shaqada ka socotay deegaanka Garacad. waxaan soo gaarnay shaqada meeshan ka socota iyo inaan soo fiirno shaqada qaabka u socoto iyo in dadka shaqadan ka shaqeynaya barnaamijka gacanta ku hayaan dhiirigelin u sameeyno oo aan u mahadcelino shaqada deegaanka ku hayaan. hadda meeshan joogno oo maanta ay joogtaan oo dhalinyartan ay la joogto Arsaaqtu Taala iyo Cabdiqaadir Jaamac waa meeshii waxa waaye dhagaxa laga jibinayay oo loogu talagalay dhagaxii loogu talagalay dekedda in lagu dhiso meeshii laga jibinayay weeye. halkaas aad arkaysaan waa meeshii dhagaxa la bajiyay waxaad arkaysaan oo dhan iyo ugu dhisi lahaa waxaa ka soo baxay dhagax ilaahay alxamdulillaah rabbil caalamiin natural oo dekedda loogu talagalay oo aan la filayn. waxaa arkaysaan qaxaabadaha duqduqoobay iyo dhardhaartaas baa meesha laga jibiyay. waxaan rajaynaynaa waqti yar oo kooban shaqadaanu inay ku soo afjarmi doonto. xoog wada jiriyo midnimo u xeero isla qaamidooda xaqiiqdii amaan mudan xaqiiqdii amaan mudan xoog wada jiriyo midnimo u xeero isla qaamidooda xaqiiqdii amaan mudan xaqiiqdii amaan mudan xigmaaduna waxay tahay xagga iyo xaggabaha isla xoojin wiid madaxdaanu xulanay xasiila xaqsoorkuye xilka noogu hagar baxa xigmaduna waxay tahay xagga iyo xaggabaha isla xoojin wiid madaxdaanu xulanay xasiila xaqsoorkuye xilka noogu hagar baxa حرون لغو برباريو حبك رعد والنبات حرون لغو برباريو حبك رعد والنبات دقمان تنعبو حاسلوني جعل با حقل داع حقل داع حقل داع ودي حرون لغو برباريو حبك رعد والنبات حرون لغو برباريو حبك رعد والنبات دقمان تنعبو حاسلوني جعل با حقل داع 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 حقل داع ودي joog xiran xanibnayn xasad dileen iyo xoolo fara badan xaqiiqdii alla dhigay xaqiiqdii alla dhigay
حران حنمنين حسد دلين iyo xoolo fara badan xaqiiqdii alla dhigay xaqiiqdii alla dhigay xigmaduna waxay tahay xagga iyo xaggabaha isla xooji wiil madaxdaanu xulanay xasiila xaqsoorkuye xilka noogu hagarbaxa xigmaduna waxay tahay xagga iyo xaggabaha isla xooji wiil madaxdaanu xulanay xasiila xaqsoorkuye xilka noogu hagarbaxa بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu joognaa meel kamid ah meelihii lagu hayay hawsha dekada sida arkaysaan meeshan waxa ka socota shaqo xoog leh baasha u jeedaan waxay qodaysaa ama rogaysaa shamiito aan filayo xaqiiqayn kasto aan wahayn inuu shub yahay horena aan u soo aragnay iyadoo shubkii la shubayo biraha lagu xirayo halkan booyadii baa taagan halkan sidoo kale shaqaalihii turkida ee mataqaan hawsha ka waday ayaa taagan waa aragtaan waxaan arki jiray badeel shubka lagu rogrogo laakiin waxa rogrogaysa waa makiinad ama baasha duqooday baa rogrogaysa hawshu waxay u socotaa si aan caadi ahayn cidii aan ka warqabin warbixintaas aan siinaynaa haddana waxaan idin geyn doonaa warshadda laga samaynayo jayga oo ku taala isla meesha meel ku dhow xoog wada jiriyo midnimo u xeero isil qaamidooda حقيقي أمان مدن حقيقي أمان مدن حقوق وذا جري مني ما وحيره اسل قامي دوذا حقيقي أمان مدن حقيقي أمان مدن xigmaduna waxay tahay xagga iyo xaggabaha isla xooji wiil madaxdaanu xulanay xasiila xaqsoorkuye xilka noogu hagarbaxa xigmaduna waxay tahay xagga iyo xaggabaha isla xooji wiil madaxdaanu xulanay xasiila xaqsoorkuye xilka noogu hagarbaxa بسم الله الرحمن الرحيم قلبت waxaan ku jirnaa barnaamijkii indhaydhaynta shaqada ka socota dekada Garacad iyo shaqadu soo socoto hadda waxaan soo tusnay meeshii lagu shiiday lagu qasay shimitada baad arkayseen ba hadda soo daawateen haddana waxaan joognaa warshadii jayga waad u jeedaan inta nooc ay u sameynayso noocan hadda anigu hor taagnahay qayb ka sii shaysa iyo qaybta dambe oo dhabarka dambe taala afar qaybood u shiidaysa dhagaxa garaashka iyadoo kala soocaysa hadda waxaan u sheegaynaa dadweynaha shaqadii Garacad inay bilaabatay meesha ugu wanaagsan ay barayso wax hadda ka dhiman oo la sugayo aysan jirin dhagaxii waa soo tusnay jayga waa aragteen shamiitadii meesha lagu qasay waa aragteen inta nooc ay dhagax u kala saarayso waa u jeedaan dadkii dhahayay maxaa Garacad laga qabtaa maxaa xagga shaqada maraysa waxay la tahay maanta inaad ka indha buuxsateen oo dhan kasta hadday shaqada tahay gacantii hadday tahay tii badii dhammaan la inii soo bandhigay aad baa inii salaaminaa assalaamu calaykum
waddaxa xigeediyo xeebta garacad waa nabad waddaxa xigeediyo xeebta garacad waa nabad bulsho wada xariiro darisnimo xaqdhowrlaa xaakinkeen kubi bismillahi raxmaan raxiim markaan waxaan joognaa warshaddii lagu shiidaya jayga waaba midaan caadi ahayn halkan geeska laga bilaabo ilaa geeska dhexbartankeedii baan ku jirnaa hadda waxaa taagan qalab aanan weli horey u arag hadda ka hor jaygu wuxuu buuran yahay meel walba isagoo noocyo kala duwana horey waxaan u soo aragnay iyadoo jaygii la qashayo kuwo ka mid ah dhaladaas saare waxaa saaran kuwo iyagana sidoo kaleeto rogaya shamiitadii kuna shubaya meelo ka mid ah warshadda xagga waxaa ka soconaya shubkii oo asna la diyaarinayo kuwo biro xiraya shaqadu innaba wax la qiyaasi karo ma aha waa markii igu horreysay aan imaado shaqadan inta ay bilaabatay anigu markaan joogay xagga in badan baa waxaan su'aalaha la soo weydiinaya waxay shaqada meesha ka socoto waa noocee maxay tahay waxaan iskaga qabnay meesha inay shaqo buuran ka socon laakiin xaqiiqatan marka maanta nimid oo shaqada kurmeernay waaba yaabna shaqada inta tireeg meel waxa ka socota dhagaxii baa laga shiidiyaa meel waxa ka socota buurta arkayseen oo dhagaxii laga gurayo meel waxa ka socota shababkii baa ka socda meel waxa ka socota warshadii baa la rakibayaa meel waxa ka socota qalabkii baa laga rakibayaa waxa aanan meesha ka socota oo shaqo aan caadi ahayn laakiin markii hore aan banaanka ka joogay waxaan isdhahayay shaqada ma socoto maxaa meesha ka jira maxaa meesha lagu hayaa marka waxaan ilaa qof kastoo si aad uga bogootid barnaamijkan ama uga qisdhacdid inaad timaadid oo indhaha ku aragtid baa ku macallin ah war lagu soo gudbo waxba ku tarmayo tikada garacda wadisatay nabadoon waxaas leeyahay waqti aan fogeyn dad badan oo gadaal isu hayay wallahi may farxaan horta anigu xaqiiqatan waxaan ku jiray dadka odayaasha deegaanka joogana waan ahaa marka haddaan ahaa waxaan ka mid ahaa dadka inta badan waa mashquulsanaa ma soo gaarin laakiin isma lahayn shaqada inta taxaal ama baaxadda inta tarleeg baa meeshan ka socota inaba ma aaminsan ilaa mooye maanta